Gudida Doorashooyinka Somaliland ayaa maanta tababar uga furay magaalada Lascanod. Shaqaalaha ka howlgalaya Codbixinta Doorashooyinka Somaliland waxaana goobta ka hadlay gudoomiyaha xogeenka komishanka, agaasimaha guud ee komishanka iyo sidoo kale gudoomiyaha komishanka ee gobolka Sool. Waxayna ardayda kula dardaarmeen inay cadaalad ku shaqeeyaan maalinta doorashada iyadoo la dhaarin doono. waxa aad horta nasiib u yeelateen inaad nagala shaqeyn doontaan shaqooyinka doorashooyinka ee qaban doono insha Allah taala hadii Allah ka dhigo ee wadanka ka dhici doonto 13 bishan ay ku jirto shaqadaas qofka la fududahay oo shaqo fudud baaha shaqooyinka hore aynu soo qabanay waxa laga yaabaa badankiina inuu soo wada shaqeynay oo xilligii registrationka bil baynu shaqeynay wixii maalin xamaada shaqada ma labaad aan siijin waxa weeye sida Cabdilaahi ka waajiyay Charles aan dadka intiisa kala helin ee qolay kale ku doorashada shaqeynaa ama boor ma joogo ama halka ma joogo inta u dhaxaysa aad heshaano ah in la iskii weydaariyo oo walba deegaankiisa gurigiisa oo ay aragnimo khibrad oo aragnimada ka soo helaysan shaqo oo aragnimada ka soo helaysan waa markii ugu horreysay laga yaabaa ee doorashada madaxweyne aad ka howlgashaan مسؤولية إلى هذا الوقت مثلا واحد نقرأ سيدا أبو شقيسا وحسي في ويدين جها وبركة مرات كبر ترسيل في لين election كي doorashooyinka سنة كاسر وحكة ولا ودت كي هاي يبان شغال إذا نوع عسكري لهاي وحسكر responsibility الموجودة صح وحكة استوى دورة استثمار نقوله ده وحبايك على تعيس سبحان الله هاي شرفتنا إيرانية عندنا مسؤوليتنا إيرانية والإسرائيلية وفق عن مسؤوليتكم مغربية وحسبت كلام لقى إحنا وضعت حد كتيرة واللي يهدوا حول مسؤوليتها وما تعمل. أنت مامل ونعكسن يوم مدحوين ونعكسن كنا صوص أرتابة إلى عيش على الدين. معاك صوص على عدالة صوص على نكفي كفر سنة كرسو حق سماه البقرية إلى هيبة دورة. اللهم اختار فانت مختار بالله لكن إذنكم حقا ومدخل صارسا وحتى مرن الدمي وحاران إنك أنت إنا استوي سواهوي عدالة الصغر والله يدكو نارن كل يروش غيره كل عرتين مختار عبد الجامع ورك 40 SBC Lascanod.